بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي هلكن waa barta YouTube ee galka wararka. qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga hadduu Rabbi karaali noqdana waxaa qayb ka dalalka ay ka socdaan ciidanka Amisom oo wada qorshe ciidankooda ay kala baxayaan Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay la wareegitaanka amniga guud goobaha ay markaasi baneeyaan ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom. xaaladda buula burde oo ka sii daraysa kadib shaqo joojintii lagu sameeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka degmada buula burde ee gobolka Hiiraan. odayaasha dhaqanka waxa ay wadaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda halkaasi ka taagan khilaafka arrimaha doorashooyinka xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi oo maraya meeshii ugu darneed. maareeye waxa uu sheegay in filla Soomaaliya ay wado qorshe afduub ah. cabdi xaashi iyo mahdi guuleed oo laba dhinac ah xiisadda gobolada waqooyi oo laga baqdin qaba inay hakad gelisa arrimaha dardargelinta doorashooyinka oo marayo meeshii ugu sareysay. daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu doorkanoona warkayaga. halkan waa barta YouTube ee galka wararka. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato. daawada si mar waliba aad u hesho wararka, warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah oo markan halkan aan kugu soo gudbino. asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan barta YouTube ee galka wararka. ugu horeyn aynu ku bilownay ciidanka qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ayaa waxaa la doonayaa qorshe markaas ciidankaas ay kaga baxayaan Soomaaliya. dalalka markaasi ciidan dhowr ah ay ka joogaan Soomaaliya isla markaana qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom waxay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ee markaasi ciidankooda ay kaga saarayaan Soomaaliya waxaa ku sugan ciidan aad u fara badan oo ka socdaan dalal dhowr ah sida dalalka Uganda iyo Kenya. sidaas oo kale dalka Burundi ayaa qayb ka ah. waxay wadaan dalalkan isla markaana ay ka shirayaan qorshihii markaas ciidankooda ay kaga saari lahaayeen Soomaaliya. ciidankan ayaa waxay ku sugan yihiin meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya sida airportka iyo dekada. sidaas oo kale waxay ku sugan yihiin gobollo dhowr ah oo markaasi ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab. qubaro farsamo oo ka kala socday dowladaha Afrikaanka ah ee ciidankooda qaybta ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom ayaa waxay ka wada tashanayaan sidii markaasi ciidankooda ay kaga saari lahaayeen Soomaaliya. shirkaas waxa ay sidaas oo kale ku wada xoojinayaan qorshaha guud ee howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom iyo sidii ciidankooda ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya dabayaaqada sanadkan aynu ku guda jirno ee 2021. kulankaasi waxaa la isku afgartay in dalalkaasi mowqif guud ay ka istaagaan markay ciidankooda isku dhafka ah ay ka bixin doonaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan aynu ku guda jirno ee 2021. go'aankaas ayaa laga gaaray muddadii uu shirka socday isla markaana uu ka soconaya Kenya halkaas oo looga xaajooday howlgalgelinta ururka midowga Afrika ee Amisom kadib markii la gaaro dabayaaqada sanadkan aynu ku guda jirno. ciidamada nabad ilaalinta ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom waxaa la rajeynayaa in dalka Soomaaliya ay markaasi ka xuleelaan bisha December 31 sanadkan markaan aynu ku guda jirno haddii aysan golaha ammaanka ee qaramada midoobay u codeynin muddo kordhin markaasi ay soo jeediyaan isla markaana ay ku sii joogi karaan ciidanka Amisom. dhinaca kale qubarada farsamo ee ka kala socday dalalka Afrika ee markaasi ciidamada ka joogan Soomaaliya waxay ku baaqeen ka hor inta aan la gaarin dhammaadka xilli howleedka Amisom inay wada tashi wada jir ah la yeeshaan ururka midowga Afrika Amisom IGAD iyo sidaas oo kale qaramada midoobay. gudiyada dalalka military iyo sidaas oo kale booliska ka joogan Soomaaliya isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka arintaasi ay kala hadlaan. ugu dambeyntii taliyaha ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom waxay soo dhaweynayaan codsiga soo jeedinta ku aadan in loo wareejiyo howlgalka midowga Afrika qaramada midoobay si loo xaqiijiyo sidaas oo kale daneeyaasha dalalka Soomaaliya
AU iyo UN-ka sidaas oo kale isla markaana dalalkaas ay Soomaaliya in ciidankooda ay sii joogi karaan iyo haddii kale ciidanka qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ayaa waxay dagaal xoogan kula jiraan xarakada Al-Shabaab iyaga oo sidaas oo kale ku sugan ila muhiim ah oo ay qayb ka tahay airportka iyo sidaas oo kale garoonka Muqdisho. daawadayaal markana waxaynu aadi doonaa dhanka iyo Buula Burde. waxaa markaasi odayaasha dhaqanka Buula Burde ay markaasi isaga imaanayaan kulan degdeg ah oo ku aadan xiisada halkaasi ka jirta kadib markii si wada jir ah xilka looga qaaday gudoomiyaha degmada Buula Burde iyo ku-xigeenkiisa taas oo ay ka dhalatay xiisad aad u xoogan. saacadaha soo socda ayaa waxaan la filayaa in odayaasha dhaqanka degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ay kulan degdeg ah ka yeeshaan xaaladda jahwareerka ah ee ka taagan degmadaasi. kulanka odayaasha ayaa waxay uga hadli doonaan shaqo joojinta madaxweyne xigeenka Hirshabelle uu ku sameeyay gudoomiyihii degmada Buula Burde iyo sidaas oo kale ku-xigeenkiisa. xaaladda ka dhalatay shaqo joojintaas ayaa waxay noqotay mid laga dareemayo guud ahaan degmada. wararka laga helaya degmada Buula Burde waxay sheegayaan in degmada laga dareemayo shaqo joojinta lagu sameeyay mas'uuliyiinta maamulka isla markaana bulshada ay cabsi xoogan dareemayaan. madaxweyne xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabargeed oo isla markaana faahfaahin sababta uu shaqada uga joojiyay mas'uuliyiinta maamulka ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay isla markaana uu soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wali lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in markaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabargeed uu xilka qaadis ku sameeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka Buula Burde. sidaas oo kale waxaa xusid mudan in wali ay taagan tahay xiisada ku aadan guud ahaan gobolka Hiiraan isla markaana u dhaxayso generaalka ka soo horjeeda markaasi madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe in markaasi isaga iyo xubnaha markaasi maamulka Hirshabelle ay soo gaaraan guud ahaan Beledweyne. tani ayaa waxay noqonaysaa xiisad markaasi cirka isku sii shareeraysa isla markaana u dhaxaysa labada dhinac. markana arrimaha doorashooyinka gobolada waqooyi ayaynu aadi doonaa. khilaaf xoogan ayaa waxa uu markaasi ka imaanaya gobolada waqooyi isla markaana doorashadooda waxa uu marayaa meeshii ugu darneed. maareeye waxa uu sheegay in filla Soomaaliya ay wado qorshe afduub ah halka Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleedna ay noqdeen laba dhinac. xiisada waxaa laga baqdin qabaa in markaasi ay halkad geliso arrimaha dardargelinta doorashooyinka oo meesii ugu wanaagsanaa marayo xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu wado dadaaladii ugu adkaa ee uu ku bixinayo arrimaha dardargelinta doorashooyinka. xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin oo ay markaasi ku heshiiyeen boobka kuraasta xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi. waxa uu sheegay in kulamada looga hadlayo doorashada dalka aysan markaasi siyaasiyiinta reer Somaliland wax matalaad ah aysan ku lahayn. sidoo kale siyaasiyiinta reer Koonfureed waxa uu ku eedeeyay inay doonayaan in dib markaas aanan loo soo celin midnimada. kulamadii doorashooyinka cid nooga jirtay malahan. dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa mas'uul ka ah in markaasi nala kala jabiyo si loo boobo kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi ayuu yiri Maareeye. waxa uu sheegay in siyaasiyiinta gobolada waqooyi ay ku jirto dowladda federaalka Soomaaliya ay lahaan jireen dhaqan ahaan in qafka markaas ugu sareeyo hogaamiyo xilliga la gaaro arrimaha doorashooyinka. dowladda waxay noo diiday oo maamul goboleedyada kula safan yihiin inaanan ka qayb gelin madasha doorashooyinka looga tashanayo. waxaan dhihi karnaa halkaa lagama rabo qadiyadda midnimada shacabka Soomaaliyeed in markaasi midow waa ay rabaan laakiin dadka kursiga ku shaqeysta midnimo ma rabaan ayuu yiri. marka iyaga naga qaybiyay oo madashii noo diiday oo hogaankii Cabdi Xaashi u diiday in talada laga qaybgeliyo ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan Maareeye. sidoo kale Maareeye waxa uu sheegay in dad badan oo midnimada u taagnaa ay koonfurta isaga tageen markii ay waayeen cid kala shaqeysa.
haddii doorashada aan loo dayn dadka reer waqooyiga ka soo jeedo dhaawac weyn ayaa gaari doona raadinta midnimada Soomaaliya haddii laga dhaga adeego dadka iska leh doorashada in maamulkeeda loo daayo tilaabooyin adag ayaa nooga diyaarsan ayuu hadalkiisa markaasi kusoo gabagabeeyay Cabdi Xayir Maareeye oo markaasi kasoo horjeestay hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay markaasi wadaan oo ku aadan saami qaybsiga kuraasta gobolada waqooyi waxa uuna tilmaamay tani in ay tahay mid afduub ah isla markaana filla Soomaaliya ay doonayso markaasi inay afduubto kuraasta ka imaanayo gobolada waqooyi wuxuu sidaas oo kale tilmaamay in maamulka dowladda federaalka Soomaaliya lagu goran ogaa xilliga doorashada markii la gaaro in kuraasta gobolada waqooyi ay u daayaan cid markaasi hogaaminayso gobolada waqooyi taana ay ahayd mudnaanta waxa uu sheegay taa hadda in ay noqotay mid la waayay daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socoteen galka wararka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waxaynu diiradda saari doonaa oo aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ka imaanaya hadba xaaladda halka ay marayso iyo arinku sida uu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa annagoo mar waliba u jaleeci doona wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanayo waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waa barta YouTube ee galka wararka booqashadaadii ugu horreysay haddii ay tahay subscribe noo saar asxaabtaada u sii share garay qaybta hoose ee oraahda commentiga kaaga aadan wararka aan soo gudbinayno noogu reeb waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodkii la jaanqaadka warkayaga